kuna wanaagsan waxaan idin la wadaagi doonaa laba sheeko oo cajiib ah iyadoona markaasi sheekada kale ay ka daran tahay culayska xoogan iyo waliba sidoo kale hardanka labada dhinac ayaa maalinta ka dambeeyay cirka isku sii shareeraya waase maamulka Jubbaland iyo dawladda federaalka ee Soomaaliya hadaba maxaa soo kordhay muuqaalo iyo waliba cadeemo watayaan idin hayaa soo dhawaada markuu ugu horeysa haddaad nagu cusub tihiin nagu soo biira kamid noqda page-ka soo follow gareey saaxiibadana sida maalinlaha wararkeena uga socda bartan kamid noqda oo markaasi soo follow gareeya like gareey oo share gareey meel dheerna gaarsiiya muuqaalka si dadyoga Soomaaliyeed xaqiiqada saxda ay ka jirta geeyga Soomaalida ay ula jaan qaadaan maasanidin soo dhawaad saaxiibayaal dawladda federaalka Soomaaliya iyo waliba sidoo kale maamulka Jubbaland ayaa wada talaabooyin culus oo ka dhan ah gobolka Gedo iyadoo markaasi dawladda federaalka Soomaaliya ay ka dejisay magaalada Garbaharey wasiirka amniga ee gudaha dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo wufuud xildhibaano wasiiro isugu jira halkaasina kulamo xasaasi ah ka waday maalmihii ugu dambeeyay dhinaca kale maamulka Jubbaland ayaa isna qaaday talaabo ka dhan ah madaxweyne ku-xigeenka maamulkaasi ka dejiyay magaalada Doolow ee gobolka Gedo xuduudna la ah wadanka Itoobiya iyaguna kulamo xasaasi ah ayay halkaasi ka wadaan sidoo kalena madaxweynaha Jubbaland ayaa dhankiisa isagana qaadaya talaabooyin ka dhan ah dhinaca Raas Kamboni oo dhawaan laga soo saaray dawladda kuwaasi oo markaas hadda ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka Jubbaland iyadoo markaasi dhankaana loo soo wakiishay ama loo soo diray madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland iyadoo markaasi halkaas isna kulamo xasaasi ah uu ka wado wasiirka amniga iyo wafdiga uu hogaaminayana waxa ay kulamo waaweyn iyaguna ay ka wadaan magaalada Garbaharey iyo waliba sidoo kale tuulooyin kale ku gaadaaman kuna agdhow kuwaasi oo si weyn markaasi uga wada hadlaya xaaladda labada dhinac bay isku haystaan taasi oo culays weyn keentay waqtigan la joogay waa markaasi maamulka iyo dawladda labada dhinac ba u dhaxeeya Axmed Madoobe ayaa dhankiisa wacad ku maray in aanan sinna looga hor istaagi kareynin yoolkiisa ama hadafkiisa ku aadan hogaamineed taasi oo uu ku sheegay in dawladda federaalka Soomaaliya waqtigan la joogay talaabooyinka ay qaadayso inaan isagu waxba markaasi ugu fadhinin ama markaasi uusan kala haynba qorshahooda dhinaca kale waxa uu xusay in madaxweyne ku-xigeenka maamulka Jubbaland oo joogo magaalada Doolow ee gobolka Gedo uuna sheegay in howlo shaqo oo culus halkaasi u joogo taasi oo si weyn looga soo horjeedo xukunka dawladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud iyo waliba sidoo kale qorshaha ku aadan ama ah in markaas doorasho qof iyo cod ah dalkan laga qabto ama la aadiyo dhinaca kale wasiirka amniga iyo waliba sidoo kale wufuud hogaaminaya ayaa bulshada Garbaharey u sheegay in ay markaasi kaalin lixaad ay ka geysan doonaan dhammaan deegaanada Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo dawladda markaasi ay ku sii fidi doonto ciidamadeedana lagu daabuli doono labada dhinacba si ay markaasi gacan ku haynta saxda ah ee magaalada Doolow Garbaharey Beled Xaawo Luuq inta markaasi ay ula wareegaan haddaba labada dhinac talaabo waaweyn ayay qaadeen kuna aadan ka dhan ah maamulka halkaasi iyo xukunkiisa dawladda iyo doorashada qof iyo codka ee madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu cilaamiyay taasi oo waqtigan la joogay aanan u muuqanin inay markaasi si toos u sii ambaqaadi doonto maadaama dhinacyo fara badan loogu dhigan yahay qorshahana ku aadan saameyn weyn ku yeelan karto si socodka dawladnimada iyo waliba hoggaanka saxda ah ee labada dhinacba hadda wixii warar iyo macluumaad kale ka soo kordha halkan aan kugu la wadaagi doonaa si shargar la garay meel dhan la gaarsiy waxaan mar kale ka dalbanayna inaan ku seyno wararkeena iyo macluumaadkeena fadlan nagu soo biir oo soo follow gareey boggeena iyo dhammaan mareegaheena kala duwan YouTube TikTok inta maasanidin